أقتحي أكون تغمر ليس مسيح ما أقتحي أكون تغمر ليس مسيح ما أقتحي أكون تنيا سليم تنكرا مايا مايا ما أقتحي أكون تنيا سوء جدا مايا مايا وين سوء مصيب بكشا أيينا تغيرنا وين سوء مصيب بكشا أيينا تغيرنا ما أقتحي يبلغ أبورة الشيء أفلاش أكون تنيا مايا 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 أفلاش أكون تنيا مايا مايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامج كان ربا بحي فاقداد تاريخنا فنك صوماليات وبرنامج عصب وهذا صوب بحي oo ilaa 10 qaybood kamid ah oo loogu hadlayo marxaladda maanta fankeena iyo taariikhdeena iyo suugaanteena ay marayso. awado waxaan idin haynaa waxyaabo cajiib ah wargiina ma maqasheen been leesku markhaati furaayo hadda waa been oo leesku markhaati furaayo. كو برنامج كان وبرنامج حساسي وحنجعلناهي ومدى الصوماليات بالكستو اي جوغان إلا جارسيو سببتو عاو حان إذن تسينا وحيابا ولقينا أنا العرك ومغل يموغاله قيبت القوات كسو دوانا فنان كوين عبدي علي بعلوان waxa uu ka hadlaayo ku soo dhawaada ani afkay maga sheegi karay. waata daawadayaal wali waxaan bartamaha u jirnaa barnaamijkeen wargelin barnaamijkan amaanta idahna waa mid aad xiis badan waxaanu nasiib u helnay inaanu waraysi ka soo qaadno fanaanka weyn Cabdi Cali Bacalwaan oo jooga magaaladaas Nairobi waa fanaan qaran waa fanaan kamid ah hobalada waa bari wuxuuna kamid ahaa fanaaniintii ugu horeeyay ee lagu bilaabay hobalada waa bari waata waxaan idin soo duubnay waraysi aad u xiis badan oo aanu ka soo qaadnay fanaankan caanka ah عبد علي بعلوان وحنا نوشي كي وبري مركي كسر بيري أو وبري لو بحي وجوري على بركي مركي وبري لو بحني وحنا هين عفرتن يصدح ميليتري في سوريا يتوار راديو موسو يتوار راديو هرجيس لحنا اللي صدح على ساعة وبري ولا قبل عامل وهي الجدال كسو لو بقول مركي جدال يجاري أنت أصلا بقول بيجاري لكن أنت لو قبل عامل لحنا اللي صدح راس تمر راديو هرجيس تمر راديو مقدسو أفرتني صدح كوحدي حوق الدلكة ولا مديي مقع وابري باللون بحيي تياتر كاو حلو غادي يسلك marka anu qolaasa kamid ah military soo wareegtay oo markii horena kooxdii xoog dalka la oran jiray waxaanu joognaa beer ku taala bartamaha magaalada Bremen ee dhinaca waqooyi ee wadanka Jarmalka intii aanu joognay wadanka Jarmalka waxaa nasiib wanaag ahayd inaanu kulannay saaxiibkii Cabdi Cali Bacalwaan oo muddo aad u dheer aanan isarkin aadna aan ugu farxay aragtidiisa ka war hayeen aad ahayd kooxdii lagu aasaasay kooxdii caanka ahayd ee qaranka waa beri ha 43 military aan ahayn iyo 10 raadiyo muqdisho iyo 10 raadiyo hargeysa 63 xasaa lagu aasaasay waa beri oo waxa laga dhigay fanka Soomaaliyeed saldhigiisii markaa ka bacdan kooxaha kale oo dhan aan bilownay inaanu imtixaan ka qaadno oo koox walba aan sameeyno iftiin sameeyo onkod sameeyo heegan sameeyo xusuus sameeyo markaa ka bacdan hawsha bilownay
halkani waa tiyaatarka qaranka Soomaaliya. sheego tiyaatarkani markii la furay yacnaha oo la furay oo toos loo furay waxaa lagu bilaabay hanuuninta bulshada iyo wacyigelinta bulshada iyo riwaayadaha barnaamijka ah iyo muxuu ahaa munaasabadaha waaweyn ee wadanka markaas ayaa lagu bilaabay runtiina wuxuu u shaqaynayay si aan la arag oo la maqan heerarkii uu soo maray anugu waxaan ahaa dadkii la keenay markii asaaskii ugu horreeyey fanaaniinta lagu asaasay 63 qof 63 qof waxay ahaayeen 43 militariga ah 10 raadiyo Muqdisho iyo 10 raadiyo Hargeysa anugu waxaan ahaa dadkii la keenay markii asaaskii ugu horreeyey fanaaniinta lagu asaasay 63 qof 63 qof waxay ahaayeen 43 militariga ah 10 raadiyo Muqdisho iyo 10 raadiyo Hargeysa cabdi cali bacalwaan waad mahadsan tahay kaliibkaaga Nairobi waa aragnay kaliibkaaga Jarman waa aragnay kaliibka ugu fiicnaay wuxuu ahay kii xamar aad ku duubtay oo ilaa hadda aad ku adkaysanaysid berigii waa beri la sameynayay in kooxda xoogga dalka ay ahaayeen 43 raadiyo Muqdisho 10 raadiyo Hargeysa 10 okay waxaan rabaa caawa in aan tusiyo ummadda Soomaaliyeed anigana liis kale gartane ayagaa noo qaadi doonaan adiga waxaa tiri raadiyo Muqdisho 10 ay ahaayeen okay kow tirso fanaaniinta magacyadooda aan kusoo sheegooyo wixii nool wixii inta Ilaahay u naxariisto laakiin magacyadoodan xusaa oo berigaas noolaayeen haddaan ka bilaabo heesaa cabdullaahi qarshe kow 2 cabdi maxamuud 3 axmed cali cigaal 4 cumar dhuule 5 maxamed saleebaan 6 xasan diiriye 7 axmed naaji 8 fanax 9 يونس هذا حجز حقوق جري أفقطها دنعاس ورقة سجال أضحي ستها نبدأ بجوجل هذا خديجة عبد الله عمي دلاس حريد إسماعيل دوليو حليم خليف مغول عاش عبدو فاطمة قاسم مريم مرسل هبة نورة intaasna waa 7 iyo 9 16 horta beentaada maasay ku soo baxday wali waxaa ku dhiman ku sheega hadana qaybtii muusigada ku dhiman wali tirso kow Hussein Bajoni violino Maclo Nur violino Hassan Shiibu violino أحمد شريف فيولينو سعيد محمد حربو كتار محمود ديرشة بيس عبدالوني الرداعي باتريو بسوري علي عوض بونغو حسين مبروكي أكورديون فيزا هارمونيكا عبد علي زونور سكسفون تنور موسى محمد عثمان سكسفون ألت علي روبل سوغلي كلارين intaasna muusigiisa waa 12 waxaa ku soo haray oo kale abwaaniinta
abwaan xuseen ow faarax abwaan cali sugulle waa labo jilaa cabdulle raage cabdullaahi farey waxaa laga yaabaa qaar kale inaan ilowsanahay laakiin intaan kugu filan raadii muqdisho sodii lamay ahaayeen waa dadkii fanka soomaali soo bilaabay waa nasiib dara bacalwaan in aad dadkaas taariikhdooda aada sheegi weyse aada ixtiraami weyse aada kusoo koobday taban intaan waa raadii muqdisho okay haddana waxaan gelaynaa cabdi qoladii aad tiri raadi hargeyso taban waaye liiskaan ka hayo kusoo dhawaaw muusikada kow maxamed saciid golonjire violin maxamed nahaari violin cabdi xandule violin cabdullaahi xamari float cali fayrus visarmonica cali dheere durbaan ismaaciil yare marna kaban marna saxophone waa muusikiiste waa 7 ruux haddana waxaan gelaynaa dhinacii heesaha kow maxamed axmed kulo labo maxamed yuusuf saddex darramle afar cusmaan maxamed gacanlow shan sooraan lix axmed gacayte todobo axmed maxamed good shimbir sideed faysal cali mushtaeg intaan waa 8 heesaa oo ragga ah haddana waxaan gelaynaa dumarka kow shamsa abubakar gaduuda xarwo labo faadumo cabdullaahi kaahin maandeekh saddex farxiya cali afar marwo shan zaare axmed lix aamine cabdullaahi dhinacan kale abwaaniinta iyo jilaha isku jiraane waxaan ka xasuustaa aniga kow huryo bisbaas gujis abwaan maxamed aadan dacar waxaa laga yaabaa fanaaniin badan aan ilowsanahay aad dhici kartaa ha iga raali ahaadaan intaan aan sheegibo nin sheegi karo waa yaryahay laakiin waxaan ugu dan leeyahay ninka yiri fanaaniinta hargeysa aad taban aan tusaayay cabdicali bacalwaan waxay dhaqdeen qolada raadiyo hargeyso 25 adigana 10 aad noo haysaa marka 15kan meeya u diri lehen adaakaa sugeena marka bacalwaanow inteed ka keentay 10 raadiyo muqdisho iyo 10 raadiyo hargeysa labo waxaa tiri kooxda heegan waa beri ayaa aasaastay been waay beentaada waay waad xasuusataa 1970kii intaan waa beri la dhisin waa beri waxaa la dhisay 1971kii bisha hadda ma sheegayay sababtoo ah ayaantaan waxaa soo baxeen waxaad sheegdid isla markiiaa la dafaa 70kii waxaad ka tumi jirteen adigoo kooxda xoogga ah heesaa hergalay waad la socotaa in heesaa hergalay kow lagu furay inay tunto kooxda raadiyo muqdisho kadibna in loo bedelay hal haween kooxdii xoogga dalka aad ka mid ahayd hal haweenne kooxdii booliiska heegan oo weli madaxa u ahaa ilaahay u naxariistee isbatoore dabagooye oo ku dhintay dagaalkii 77 kooxda heegan way jirtay heesaa hergalay ka tumi jirtay xoogana way ka tumi jirtay raadiyo muqdishona way ka tumi jireen xataa shareero way ka tumi jireen heesaa hergale taasne saasaan kuu sheega walaalkayo marka waa nasiib daro laakiin adiga maku eedaay waxaan eedaa cajaladaada kugu dambeysay aada muqdisho ku duubday
dadka kaa duubay iyo dadka jaakadaha wati oo idaacadda ama telefishinka joogo ayaan eedeynayaa oo maskaxdooda ka soo bixi weyse intaas fanaaniin waa beri oo jirto oo jansuura aan soo deeyey barnaamijka waa ceeb waa ceeb ma soomaaliya iloobi karta magool ma soomaaliya iloobi karta maxamed saleemaan ya inta fanaaniin jirtay baa la iloobi karaa xataa malow halka oo soo war calwaanow tabankan sheegaysid noo sheeg yaa waay waxay ku tusaysaa inay yihiin kheyr mas-uul dembigaasna waxaa dusha loo saaraa laba wasiir wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wasiirka hiddaha iyo tacliinta sare markee taariikhda ummadda soomaaliyeed waa taariikh maguuraan lama taabtaan waa dhaxal aniga mali adi maliid beenna maga sheegi kartid marka bacalwaan iyo aniga ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaa labadeena ninkii garta leh inay usoo codeeyaan barnaamijkan waxaad ka fiirisa kartiin maclo media tan waa qaybta koowaad haddana qaybta labaad ku soo dhawaada aan u bixiyey been kale lagu markhaati furaayo hadda waa been oo been kale labo lagu markhaati furaayo ku soo dhawaada maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa allaha u naxariistay axmed day abuukar alcamaari axmed day abuukar alcamaari ayaa bilowgii fankiisa waxa uu ka mid ahaa kooxdii shareero ee ku heesi jirtay lahjada banaadiriga haddaba si taariikh nololeedkiisa uu nuuga waramo waxaan la xidhiidhay wariye cumar cali serbiya oo ah cilmi baadho faneed oo ku sugan magaalada nairobi maxmed waad mahadsan tahay marka hore allah u naxariisto axmed day abuukar alcamaari oo muqdisho ku geeriyooday maalintii shalay ahayd axmed day markay noqoto barbaartiisii bishii juun sanadkan dhammaanaya ayaa waxaan ku booqday magaalada muqdisho xaafadda shangaani wuxuu ii sheegay sanadkii 1945 inuu ku dhashay magaalada muqdisho kadib uu ku barbaaray muqdisho markii ay taariikhdu ahayd bilowgii 60kii ayuu bilaabay fanka waxaanu fankiisii koowaad ka bilaabay kooxdii shareero oo madax u ahaa ninka la yidhaahdo axmed naaji sacad iyo kooxdiisii oo walaalkii ka mid ahaa waxay ka heesi jirtay kooxdaasi inta badan waxay ku heesi jirtay lahjada banaadiriga meelaha la iskugu yimaado caweysyada iyo meelaha runtii dadku ay ku nastaan ayay kooxdu inta badan dadka ka mid daalin jirtay wuxuu ahaa runtii nin fankiisu aad u xoogan yahay oo runtii dadku aad ay jecel yihiin waqtiyo ka mid ah iskuullada qaar waa lagu dhigi jiray qisooyinkiisa gaar ahaan qisada jacaylkiisa oo kale macallimiintu aad bay uga sheekaysan jireen oo aad bay caan u ahayd allah u naxariisto axmed day abubakar alcamaari kaasi waxa uu ahaa cumar cali serbiya oo ah wariye cilmi baadho faneeda waxaana wareysanaya isagoo ku sugan magaalada nairobi ee waddanka kenya walaalayaal waad aragteen kaliibkii ama warbixintii taariikh nololeedkii fanaan axmed day abubakar oo soo saaray serbiya waa nasiib daro adigoo ah nin sheeganayo cilmi baaris faneed kow waxaad meel oogu dhacday magaca fanka soomaaliyeed iyo adduunka waayo adiga waxaad tiri waxaan ahay nin cilmi baaris ku sameynaya fanka yacni fiiri markaad sheegaysay axmed naaji waxaa tiri kooxda shareero waxaa madax u ahay nin la yiraa axmed naaji ceeb ma u quuri weyse kooxda shareero waxaa madax u ahay fanaan axmed naaji hadduu ustaadku ku dhibaayo kow tan labaad waxaa rabaa inaan ku warsado dhowr su-aal gaagaaban kow waxaa tiri axmed day ilaah naxariistee 1900
afarta shantii la dhalay lixdankiina shareero u heesaay ma u heesi karo shareero walaa koox oo caweys laga tumo laakiin xaafad xaafad iyo baashaal baashaal yes waayo berigaas dalka waxaa ka jiray sharci kan hadda adduunka ka jiro berigaas xamar ka jiray gabadha ama wiilka hadduu 18 sano gaarin meel caweys mamnuuc ma geli karo waa mamnuuc axmediyana wuxuu ku jiray 15 sano qaladka koowaad tan labaad waxaa tiri caweysyadoo ka heesi jiray lahjada banaadiriga anaga waa ka islaanahay caweysyada waxaa laga heesaa hees ingiriis carabi soomaali talyaani sawaaxili waay waa night club qof kastaa soo gelaya marka tanna waxaan ka rabnaa oo wariyaha afka u gelis meydka kaanti luqadaan cusub labo haddana waxaa kaloo tiri kooxda shareero oo madax u ah axmed naaji sacad ustaad axmed naaji sacad 1962 ayaa la qoray raadiyo muqdisho asagoo dhalinyaro ah oo tumaayo gitaar iyo violin waxaana lagu qoray heesaa iyo muusikiisti laba jabo marka intee ka keentay lixdankii oo axmed naaji caweyska tumaayey axmed naaji kale baa jira marka taasna waxaan kaa rabnaa inaad noo keentid marka waxaan taariikh waaye ummadaana daawanaysaa ummadaa ku daawanaysaa anaga taariikhda waxaan haynaa fanka soomaaliyeed alif ilaa ya ayaan haynaa marka waxaan rabnaa wixii cusub aad heshi oo anaga naga maqan inaad nafahansiisid shareero oo lixdankii caweysyada ka tumaysi aan rabnaa anaga axmed naaji waxaan ogeen 1962 raadiyo muqdisho in la qoray masawirkiisana waa ujeedaa anaga wax kasta waxaan haynaa masibiradii talyaaniga iyo ingiriiska weli waxaan kuu keenaynaa fooliyo baagadii koowaad oo lacagta ku qaatay marka shareero meha aad ka keenti walaalkeeyow jawaabteeda kaa sugeynaa warkane mehaan ooga baxay fariin waxaan u dirayaa kow wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka wasiirka hiddaha iyo tacliinta sare dowladda federaalka somali pen oo fadhigeeda uu yahay dalka jabuuti iyo akademi goboleedka soomaali oo fadhigeeda uu yahay jabuuti oo ah kuwa hadda aruurinayo afkii soomaaliga iyo dhaqankii walaalayaalow shaqadiina waad ka gaabiseen haddiid ka aamusteen allahu yaclam war taariikhdii soomaaliya ayaa sida loo gelayo walaalayaalow maad ka hadashaan maad tallaaba ka qaadaan mas aqoon muu leediin mas mamnuuca u idinku yahay inaad taarikhda soomaaliya ad ka hadashaan adinkaan jawaab idinku sugayaa iyo walaal serbiya waxaan kaa rabnaa jaceylka marxuumka axmedey abubakar oo iskoolka laga dhigaayi sanadkow ahay darsigow ahay buugow ahay anaga ma maqlin adiga haddii maqashay aniga adi waa kaaweenahay da-aan aniga ma maqlin adiga waa maqashay iskool soomaali waa soo dhigtay adigana waa soo dhigatay marka waxaa rabnaa walaalkeeyo inaan kaa faa'iidaysano gabadha uu jeclaay jaceylka laga sheekey jiri buugow ku qornayna inaad noo keentid wabillahi tawfiiq waad aragteen luqadan cusub iyo taariikhdan cusub oo laga sheekeeyey horta aniga wariyaha ma eedeynahay markay beryahan waxaa socdo aan la socdaa warka waa loo soo dhiibay serbia waxaan warsanaa dhowr su-aal oo yar serbia waxaan kuu sheegaa koo horta waxaad sheegatay nin taariikh cilmi baaris wax kasto marka kow waxaad qaladay taariikhda aad baaroosid waa fan serbia waxaana siib dara horta adoo sheeganayo nin taariikhyahan iyo waxyaabo fara badan
aawi ixtiraamkii axmed naaji aawi ustaad axmed naaji ixtiraamkiisa ma dhihi weysi kooxda shareero waxaa xakumayay ustaad axmed naaji ama alfanaan axmed naaji horta taas waa ku dhacday ko marka su-aasha koowaad aan ku warsanayo waxaa tiri kooxda shareero oo 60kii ka mid noqday axmedey abubakar waxaan kuu sheegaa hal shay kaa maqan horta adiga waxaan mudaa iskool ma soo dhigan adiga haddaad soo dhiga laheedne xisaabtaa lagu bari lahay axmedey waxaa tiri waxu dhashtay 1945 good 1960kii waa 15 jir berigaas dalka wuxuu ku socday sharcigii talyaaniga 60kii waxaa jiray wax la dhaho bona castuma labo nin 15 sano ku jiro kalaab ma loo ogoleen saddex waxaa tiri maxaas ahay lahjada banaadiriga ayay ku heesi jireen good ma xumo night kalaab lahjad banaadir lagu heeso berigaas waxaa lagu heesi jiray heesa talyaani heesa ingiriis heesa soomaali labo imtixaankaasne waa ku dhacday serbio su-aalaan ku warsanaa waxaa tiri axmedey abubakar jaceylkiisa iskuulaadkaa laga sheekay jiray oo macalimiinta ka dhigi jireen yani darsi anaga jaceylkii arki weyne axmedey oo adiga aragti waxaan rabnaa fadlan maadaama nin cilmi baaris nin fanki dabagalay oo taariikhda fanka ahaaya aad tahay inaad noo keentid daliil buugaas mee ka soo baxay axmedey aniga adiga waa kaa badiyaa anigana waxaa iga badiyaa ninkii fanka soo geliy ustaad axmed naaji sacad anaga markaa cajalada aragnay waa yaabnay markood waxaan qaadanay axmedey abubakar kale oo jaceylka laga dhigi jiray oo asaga soo maray oo aniga ogeyn adiga ogdahay maxaa tahay daliil baa waasaa mas waxaa lagaga sheekay waayo ko waxaa tiri axmedey waxaan ku qaabilay degmada shingaani axmedey shingaani ma degno axmedey allah yarxam noloshiisa oo kooban ku sinaanay axmedey abubakar wuxuu degnaayay ilahi u naxariiste degmada shibis guri ka soo horjeedo ouna ku dhashtay ouna ku aroosi ko labo markay dagaal sokeeya bilaawadeen hal mar oo baxay yeman oo aaday saddex markay yeman dagaal sokeeya ka bilaabatay yeman oo soo baxay boosaasoo yimid boosaasoo joogay si fiican oo sharaf leh ayay usoo dhaweeyeen ummadda ku nool puntland iyo madaxdooda wax allaala waxuu u baahnaay way u sameeyeen wayna ku mahadsan yihiin xamar oo soo dalbaday xamaraa la keenay gurigiisa balaanja kama soo bixin waayo nin da- is ahay iska xanuunsan marka aragada waxaan kaa rabnaa luuqadan cusub oo wariyaha aad usoo dhiibtay oo ah arda dhamaystiro mee aad ka keentay inaad noo sheegtid ko haddana waxaan soo wadnaa barnaamijka ku xigo waa alfanaan maxamuud ismaaciil xudaydi maalintoo dhintay inta telefishon soomaaliya ka hadashay kowdhe inta ka hadashay oo t v soo fadhiisatay ugu weyn b b c nasiib daro anaga b b c maanta waxay noo ahayd kaydka ummadda soomaaliyeed halka uu yaal waa b b c hadda faaladaas ma gelaay laakiin xajaladaas waa soo bixaysaa anoo ku hadlayo magaca fanaaniinta soomaaliyeed oon kula xisaabtamayno b b c barnaamijka ka baxay raadiyaha
tacsiidii abwaan xudaydi qaladaadkooda iyo soxooda asoo maqal iyo muuqaal aa loo keenaa iyo inta t v kale wax allaale waxay khalad dhacay iyadoo maqal iyo muuqaal aan keenayna waa cajalada bishan dhalanayso hadduu ilaahay khalaal naqdo julaay ayay soo baxaysaa 5 julaay waa isla barnaamijkan tanna meana ugu baxay haddana tan saddexaad ku soo dhawaada الله يرحمه فنانك غالي او ري وقويغا محل ديجنا محمود احمد كلع محمود احمد كلع iyo cash cabdood heesa ay yar yar ma aragtay intuu oo wahay Zulful 5 waa 6766 waxaan tumay dadkaas waxay axmar rabshe iyo isu yimideen iyo Allah yarxamo Sulaymaan maxal lorgi oo base tumayay aduu group yahaayeen tifo kitaar uu tumayay asagana axmar rabshana kitaar uu tumayay groupadaas yahaayeen Zulful 5 صاحب ياسين مسؤول كان موجودة وهذا سولفول 5 كو كتار كليت وحاوتم يجري عبد الرحمن بنانا مايكل وحيد هيسائه مرحوم أستاذ أحمد رمشة أورغان كأه مرحوم سالمو قربان كنتم يجري سعودي كل انتي يو أمبرتو وبيسبو كنتم يجري حلنا كمكان oo markii ka baxay oo Abu Dhabi aaday Cabdulrahmaan Banaana nin kale cadaan oo ka shaqeeya jiray safaaradda Jarmanka ah ee dil dhihi jiray oo Jarmani ah aktaarka bedelay waana ninkii ugu horeeyay cadaan ee Soomaali qaado gacal adduunyo leh gaaban leh waaye marka masiirkan waa kooxda markii la aasaasay masiirkan waxa waaye 69kii 70kii todobaadkii koobdiina waatay kooxda baabaaday ustaad axmed rabshe allah yarxam uu aaday nairobi owna ka sii aaday suudaan waxbarasho wabilaahi towfiiq 1979 wixii ka dambeeyay 80 Soomaaliya bye bye oo noqday fankeed Arab June oo noqday ya qof kale baa iskiisa soo baxay oo dhahay markaasuu baabay 79 ko baabay fanka Soomaalida dadkii faqri bay noqdeen wax keer gareena ma jiro annaga fankeena Soomaaliya wuxuu bilowday 1939 oo bilowday Allah yarxamo Qaasim Hulowlo cunug yar oo Talyaaniga ay wax barayaan Xuseen Mambruuki Allah yarxamo asoo cunug yar baba macnoow asoo ilmo yar maxaa la oran jiray fanaaniinta odayaasha waaweyn oo ayagoo ilmo yar ay wax baranay 1939 oo bilowday fankeena waxaan mudaa saddex kalib waad aragteen ilaahan idinku dhaariyay marxuum maxamed axmed kuluc ninkii magaciisa kasi waaye ya oo kasi waaye ma ka hadli karaa fan hadduu gafay yaasiin oo maxamuud yiri ninkii barnaamijka iska leh maxaa laga rabay walaalayaalow ogaada in taariikhdeena sida dalka loo burburiyo saas loo burburinayo ogaada ninka maanta ilaah u naxariistay maxamed axmed kuluc kasi waaye maxamuud ku sheegay marka maxaa laga hadlaa ii sheega marka jawaabta adiga adiga sugaa taas meel ugu baxay tii koowaad tii labaad yaasiin walaalkeeyo raali ah qalada lagu sheegay solfo 5 sida aan kugu sheegay ayay u jirtay taasna waa kaa shaafiyey tan saddexaad yaasiin 1980kii fanka Soomaali markaas aad ayuu u hirgalay zulfaa soo baxay
fanaaniin kale banaadir ha soo baxeen dad badan ha soo baxeen kooxa badan ha soo baxeen riwaayadihii banaadir heer waxaa la gaaray ilaa safka uu gaaro fiyooraha bijeeti timigo sax la gooyo adiga wadanka waa ka maqneed waxaad sheegaysid marka walaalkayow ka raali ahaaw taariikhda dadka warso xataa waxaa la gaari koox kastoo dawladda lahayd inay dhisato ayadoo loola dagaaltamaayo fanaaniinta banaadiriga kooxda arka waxay samaysatay banaadiri oo siyaasi ah taasna ula soco idana feelkeeda waa soo saari doonaa okay waxaan rabaa yaasiin aniga aabahayga ilaah naxariistee maxloo nuur baxo wuxuu ahay ninkii lamaad ee raadii muqdisho xuseen baajuni kow adoogeyga lamo aniga adoogeyga waa ogyihin raadii muqdisho anoo yar inuu raadiyaha igee jiray anoo weyne taariikhdan uu iga sheekey jiray feelalkiisa wixiisana waa hayaa marka waxaan kaa codsanaa walaalkeeyow saaxibkee yaasiinow waxaan rabaa intee ka keentay 1939 baaba macloo baaba qaasin baaba xuseen aniga feelka adoogay markiin baaray dhaxalka uu ii dhaafay waa kanay ku soo dhawaaw jornaalka maalinta u dhashtay waa 1929 adigana 39 aad sheegaysaa marka 9 sano muusiq ku bilaabe aniga waa wareer yaasiin saaxibo feelkan meydka keentay noo keen aan ka faa'iidaysano mas waxaad naqatay qolooyinka jecelna wax kasta iska sheegaan oo whatsappyada iyo facebookyada oo beesada ka aruursadaan saas kugu weyn aniga waxaan fan waadan fanaa tahay nin miisaan laha tahay wixii afkaar ka soo baxayo ogaa walaalkeeyow adoogay 29 kaal dhalay marka 39ka soo galay music 9 sano ku jiray dus quraan u dhignay marka waxaan ka codsanaa haddii adiga yaasiin ka seenin milkiilaha labada qol hadduu yaqaan hanoo soo sheego beyska keene fikradaas taasna meehan oogu baxay ani waxaan ogahay oo taariikhdan ahaayo warqadaheeda maqal iyo muuqaal xuseen mabruuk ilaahu naxariisto iyo baaba qaasin hilowle oo ka tirsan kooxdii SYL 1953 in raadii muqdisho la keenay warkay si fiican u maqal warqadihii talyaaniga documentary cad kulli waa haynaa weli waxaan haynaa fisha guwerna oo muusiga laga tumaayo markii daaqiliga la saarayay allah yarxam xuseen baajoni allah yarxam adoogeyga allah yarxam xuseen mabruuki maxamed dhaashane allah yarxam oo markii dambe wareey naqdi oo miis tumaayo iyo oday cali mursal oo la dhihi jiray oo gurbaankii oo bondheer lagu timi jiray oo gacanta ku tumaayo oo baaba qaasin naqaadayo hal ahaanay hees la dhihi jiray iyadoo maqal iyo muuqaalan hayna anaga marka waxaan rabaa taariikhdaasne haddii taasid waa kaa faa'iidaysanaa nookeen 39 adoogay ma dhalanay 39 milkiilaha oo barnaamijka duubay waxaan ka codsanaynaa fadlan walaalkeeyow adoo raali ah bahashaan waa taariikh ummadda soomaaliyeed cid iskale ma leh walaa dawladda hadda joogdo walaa tan imaan doonto walaa tii shalay jirtay ma aha waxaa jira hees ou tiriyey ilaahu naxariistee cabdi maxamuud amiin taariikhdu dadkay bartaa ninna ma doonto ninna ma diido runtay dacal ku haysaa marka dad badanaa soo baxay oo taariikhdii fanka soomaaliyeed ku cayaarooyo marka insha allah barnaamijkeena intaasaan kusoo gabagabeynaa kow
haddana waxaan soo wadnaa barnaamijka ku xigo waa alfanaan maxamuud ismaaciil xudaydi maalintoo dhintay inta ka hadashay oo t v soo fadhiisatay ugu weyn b b c nasiib daro anaga b b c maanta waxay noo ahayd kaydka ummadda soomaaliyeed halka uu yaal waa b b c hadda faaladaas ma gelaay laakiin xajaladaas waa soo bixaysaa aqoonta ama laysu